war badan ayaan sii dhamay waqtiga inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka guddoomiyihii hore ee jaariyadda Soomaaliyeed ee UK mudane Cabdi Cumar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين انت كدب ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن مركو هوري مهد بلارن وعلى قياس كرين الله يبقى مهد له وعلي ليا بل يردي runtii barnaamijkan quruxda badan soo qaban qaabisay bilaabay qaban qaabadiisa maalintii la doortay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa maanta soo waday runtii khiirada wadaninimada Soomaalinimada ay muujiyeen aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantiin inta kadib inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo marka hore Allah u naxariistee saaxiibkay Maxamed Cumar Hagafey oo magaalada Muqdisho shalay si afan darra loogu diray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mar labaad aad iyo aad runtii uga xumahay wuxuu ahaa nin reer Londona wuxuu ahaa nin wadaniya wuxuu ahaa nin Soomaaliya wuxuu ahaa nin deeqsiya runtii halkan kuma soo koobi kara Maxamed Cumar taariikhdiisa qolada dishayna waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu Ilaahay uga abaal gudo isagana jannatul firdaws ka waraabiyo inta kadib waxaan rabaa sidoo kale inaan runtii aad iyo aad ugu tacsiyeeyo dadkii Soomaaliyeed ee maanta ku dhamaaday qarixi ka dhacay magaalada Muqdisho inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa runtii qisa aad u xanuun badan oo laga gilgisho maanta inagoo faraxsan inagoo dabaaldegayno inagoo soo dhaweynayno madaxweynaha cusub oo qof kasta ku faraxsan yahay in qofka Soomaaliya maanta dhiigiisa lagu daadiyo magaalada Muqdisho runtii aad iyo aad ayaan uga xunahay waxaan qaadan doonana maaha waxaan leenahay Allah u naxariisto dadka laga ku dhintay dadka dhaawacaana Ilaahay ha bogsiyo inta kadib walaalayaal waxaan rabaa aniga kaliya in aan ku dheeraado oo wax yar aan ka iraado waa soo gaabinaya insha Allah xanaan doorka waa run Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa doortay shacabka Soomaaliyeed awoodda shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waa mid cadaatay markii baarlamaanka Soomaaliya qeyralaasiye ay doorteen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaa darteed marka shacabka Soomaaliyeed ogaada dadkiisii ugu badnaa ee waxtarka lahaa ee waxqabadka lahaa ee aqoonta lahaa wuxuu joogaa qurba waxa jirtay barnaamij waagii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah ra'iisul wasaaraha aan runtii isku daynay inkastoo anagoo barnaamijkaas wadno ee dawladda dhacday oo ahaa in loo sameeyo account qurba joogta Soomaaliyeed oo qof kasta adduunka meel kasta uu joogaba oo meesha uu jooga uga rido lacag laakiin dawladdu ay maamusho oo ay noqoto wax nidaamsan oo budgetka dawladda lagu daro oo meel loo jiheeyo waxaan ugu talagalnay runtii waagaas arrimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada ugu badnaadaan sidoo kale runtii waa muhiim maanta taa iyo in la mida in la qabto waad ogtihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabaha uu ku dhaartay inay tahay in uu xoojinayo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ciidamada qaranka Soomaaliyeed xoojinteedana kuma imaan karto dhaqaale la'aan ciidamada waxay u baahan yihiin mishaar waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad waxay u baahan yihiin agabkii ay ku shaqayn lahaayeen waad ogtihiin dalkeena markuu burburay waa kala qaybsanay aniga caaw ma rabo inaan cid kala eedeeyo laakiin inagaan rabnaa inaan maanta isu tashano wadankan Eritrea la yiraahdo waxa la yiraahdaa malaha resources wadanka gudihiisu wax ka soo baxo oo wadanka looga shaqaysiyo malaha
dhaqaalo badan oo waddanka soo gala ma laha laakiin maxay ku noolaadeen oo waddankooda ay ku dhiseen waxay ku dhiseen lacag ka timid qurba joogta qof kasta oo qurba jooga waxaa loo sameeyey kaar eraboorka kama degi karo hadduusan bixinin contributionka ay ku leeyahay waddankiisu innagana waxaana la ka rabaa sidaasoo kale inaan waddankeenna contribution ku bixino secondly markaan sidaan leeyahay ma aha inay noqoto isgarabyaac oo qolo walba ay tiraahdo account-aan furayaa oo lacagaan u aruurinayaa dowladda ay tiraahdo ma aha dowladdu waxay soo diyaarin doontaa insha allahu wax nidaamsan oo ay u soo gudbiso biidnillaahi alkariim waa marka dowladdu ay dhalato ay buuxsanto ra'iisul wasaaraha sameeyo oo wasiiradii la sameeyo waxaa dhici doonta in la sameeyo account looguna baaqa dadka Soomaaliyeed dhammaantood inay account-kaas qof walba meel joogo ku soo shubo walaalayaal marka waa iga codsi taasi oo waxaan idin soo jeedinayaa in arrinta ku dhiirataan waxaa runtii muhiima marka arrinta oo door fiican ka ciyaari karo dhalinyarada door fiican ka ciyaari karo maxaa yeelay dhalinyaradu waa dhiig furan yihiin waa firfircoon yihiin maanta waddankooda maadaama dowlad ay raalli ka yihiin ee u dhalatay waa kuwa keliya ee xoogga saari karo inay dhaqaalaha soo ururiyaan inay waddankooda garab istaagaan inay dadkooda maanta dhibaatada ku jiro oo dhibaataysan ay ka saaraan walaalayaal waxaa kaloo rabaa inaan idhaahdo waddanka abaara ka dhacday waad arkayseen xoolihii ayagoo baqbaqtiyoo dhintay in aad arkayseen waad arkayseen dadkeennii inay badankood dhimasho ku dhow yihiin maanta waad arkayseen inay haraad iyo biyolaan u dhimanayaan innagana inaan awas runtii maalin dhoweeto subaxii alasay anoo quraacanay oo TV-ga hor fadhiyo ayaa waxaa soo galay dad Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo laga sheekaynay wallaahi inaanan beri idin sheegayn quraacdii afkayga ma saarin ilinaar iga timid waan ooyey taas marka walaalayaal dadkeenna inagoo noo baahan yahay maxamed cabdullaahi farmaajo khayr Allah siiyo waa madaxweynaha Soomaaliya kaligiis waxba ma qaban karo waxa kale oo rabaa inaan idin cadeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga Tayo anigu waxaan ka mid ahaa xisbigii Tayo si kastaba ha noqotee maadaama madaxweynihii Soomaaliya oo yahay maanta wuxuu u dhaxeeyaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan cadeynaynaa haddaan nahay Tayo Soomaali waxay baratay gruuba meel ugu xiran iyo gruub kale oo la shaqeeya waa madaxweyne Soomaaliyeed Soomaaliya dhammaan u dhaxeeya Tayna Soomaaliya ka mid tahay marka walaalayaal waa mahadsantihiin waa soo gaabanayaa barnaamijka waqtigu aad u yar yahay aan kulligeen gacnaha isqabsano aan midoobno waxaan kaliya ku soo celin rabaa kaliya calankan saawla socotaanba gruub walba qayb walba ama qolo walba caday ka goosatay oo ay qaadatay walaalayaal waa idinka codsanay Soomaaliyeey waa Soomaaliya oo dhan qolo walba cadka ay qaadatay soo celiso oo calankan ku midowno waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha hore ee jaariyadda Soomaaliyeed UK aad u mahadsantahay Cabdi